بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada walaalaheena qaaliga ee ku xiran channelkeena caafimaad channel insha Allah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo gaaska iyo soonka barnaamijka caafimaadka ee ramadaanka waxaan ooga hadlayaa maanta qofka qaba gaaska iyo sida ay tahay inuu ula dhaqmo soonka iyo cuntooyinka u fiican gaaska uu qaadanayo qofka cudurka gaaska waa astaan xanuun oo aan la jeclaysan markuu qofka hayo gaaska maaha cudur ee waa astaan tilmaamaysa inuu cudur jiro maadooyin dhowr ah ee kala ah nitrogen carbon dioxide oxygen hydrogen iyo methane ee isku dhex darsamaan markaas waxaa sameysma gaaska mindhicirada haddaba gaaska mindhicirada wuxuu inta badan ku jiraa marinada habdhiska dheefshiidka ka bilow caloosha ilaa iyo dabada gaasku haddaba meequu u qaybsamaa gaasku waa laba qaybood mid waxa uu ku dhacaa habdhiska dheefshiidka sare midna wuxuu ku dhacaa habdhiska dheefshiidka hoose midka sare waa marka aad wax liqdo ama hawo gasho mindhicirada haddaba barnaamijka caafimaadka ee ramadaanka maanta waxaan ooga hadlaynaa qofka qaba gaaska siduu ula dhaqmayo soonka iyo cuntooyinka uu qaadan lahaa run ahaantii waxaa jira cuntooyin u daran qofka qaba gaaska khaasatan markii lagu jiro soonka iyo cuntooyin u roon waxaan bilaabi doonaa hadda cuntooyinka u fiican gaaska cuntada ugu horeysa ee u fiican gaaska waa malabka waa daawo waxaana lagula taliyaa qofka qaba gaaska inuu subaxdii markuu soo tooso asagoona waxba cunin in biyo caadi ah uu ku darsado hal qaando malab saafi ah saasna uu ku cabo sidoo kale waxaa u fiican boorashka daasadaha waa cuntada ugu wanaagsan ee ku qureecan karaan ama ay ku suxuuran karaan dadka qaba gaaska maxaa yeelay marka caloosha lagu rido waxay nuugtaa wixii acid ahaa oo caloosha ku jiray gaajadana way u fiican tahay oo waa lagu dhargaa waxaa kaloo u fiican sanjabiisha qoyan wuxuu yareeyaa laabjeexa iyo biyaha kulul ee qofka kusoo rogmaya gaar ahaan markuu qofka cuno gaaska ku kicisa iska ilaali sanjabiisha qalalan taas waxay kicisaa gaaska qaabka loo isticmaalo sanjabiisha qoyan waa inaad biyo caadi dhex dhigtid si ay ugu milinto kadibna aad biyaha u cabtid waxaa kaloo u fiican geedka dacarta waxaa lagu daaweeyaa gaaska oo diida inuu raysto muddo wuxuuna daboolaa nabraha caloosha ku yaala iska ilaali inaad isticmaashid dacarta meelaha lagu gado oo lasoo warshadeeyay waxaa muhiim ah inaad isticmaashid dacarta asalka ah sababtoo ah kuwa lasoo warshadeeyay badanaa waxaa lagu daraa waxyaalo kiimikaala qudaarta cagaaran noocyada qudaarta cagaaran oo dhan iyo salarkaba way u wanaagsan yihiin dadka gaaska qaba dadka badsadana gaas iyo calool fadhi intaba isma arkaan gaaska iyo calool fadhigaba aad ayay ugu wanaagsan yihiin qudaarta cagaaran oo waa in lagu dadaalaa sidoo kale gaaska waxaa u fiican caanaha waxay u wanaagsan yihiin gaaska gaar ahaan caanaha subaga laga saaray oo la qaboojiyey waana muhiim inaysan ahayn caanuhu kuwa fadhiya ama suusac waa inay ahaadaan caano dhay fareesh ah ama caanaha gasacyada ku jira waxaa kaloo u wanaagsan babayga sababtoo ah babayga caloosha wuu socodsiiyaa wuxuuna yareeyaa aasidka caloosha dheefshiidkana wuu hagaajiyaa waxa uuna u roon yahay laakiin waa inaan lagu darin liin dhanaan iyo sokor fiiro gaara haddaad tahay qof qaba gaas waa inaad ka fogaatid basbaaska waxyaalaha la shiilay waxyaalaha dhandhanaan ama khamiirka leh sida canjeerada cabitaanada aasidka leh iyo qaraha asigana aad ayuu ugu xun yahay dadka qaba gaaska oo uma wanaagsana haddaba gaasku wuxuu ku dhacaa caloosha waana xanuun ay badanaa sheegtaan dadka Soomaaliyeed waxaana sababa dhowr arrimood oo kala ah daawooyinka qaar sida aspiriinka iyo antibiotic qaar ka mid ah iyo aashitada caloosha oo badata taasoo ay sababaysa gaajada muddada dheer ama qofka oo sooman xanuunka aashitada caloosha oo batay sidoo kale waxaa keena bakteeriya loo yaqaano H pylori loo gaabiyo oona loo yaqaano Helicobacter pylori waxaa kaloo keena gaaska cabitaanka aashitada leh iyo cuntooyinka dhanaan ama kuwa dufanka leh ama kuwa basbaaska leh ama la khamiiriyay waxaa kaloo keena gaaska sigaar cabidda iyo cunida tubaakada haddaba
waxaan soo sheegay cuntooyinka u fiican gaaska khaasatan xilliga la sooman yahay. Cuntooyinkaas oo ka mid ah malabka, sidoo kale waxaa ka mid ah boorashka, waxaa kaleeto ka mid ah sanjabiisha qoyan, sidoo kale geedka dacarta, qudaarta noocyadeeda khaasatan qudaarta cagaaran, caanaha oon sheegay caanaha dufanka leh ee caanaha aan dufanka lahayn, sidoo kale babayga. Insha Allah ka faa'iideysi wacan. Soonka dadka gaaska qaba inta badan wuu ku kacaa. Sababta ugu kacana waxaa waaye Soomaali haddaan nahay cunto xumi ayaa jirto. Qofka waxaa arkaysaa maanta dhan uu soomnaay, maanta dhan uu baahnaay, kadibna wuxuu ku afurayaa biyo liin dhanaan ah. Liin dhanaanta gaaska ayay kicisaa. Marka qofka waxaa fiican markuu gaaska qabo timir inuu ku afbilowdo ama biyo cad inuu cabo, then waxyaalaha kale uu cuno. Sidoo kale basbaaska iyo liin dhanaanta badan iyo dhandhanaankana inuu iska joojiyo, sababtoo ah calooshiisa maanta idil way baahneed. Baahidaas ayaa waxay keeni kartaa gaaska inuu kaco. Haddana ma aha waxyaalihii gaaska sii kicin karay aashitada iyo inaad sii cabto ma aha, ama aad cunto iyo basbaaska iyo waxyaalaha dhanaan iyo cusbada inaad iska badiso ma walaalahayga qaaliga. Insha Allah iska ilaaliya soonka inta lagu guda jiro inuu idinku kaco ama inuu idinku dhaco gaaska. Ka faa'iideysi wacan insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.